Women Situation Room amaba xarunta la socodka dhibaatooyinka haweenka waxaa la aasaasay xilligii ka horeysay doorashooyinkii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee 2021 waxaana loo aasaasay si ay u taageerto dhiirigelinna u siiso guud ahaan haweenka Somaliland si ay uga qayb qaataan doorashada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada waxaana siisay taageero mug leh iyada oo u noqotay goob ay isugu yimaadaan kuna wadaagaan ajendayaashooda iyo arrimaha doorashooyinka. Markay dhamaatay waqtigii doorashada waxa soo baxday tiro badan oo cabashooyin ah iyo dhibaatooyin badan oo ay la kulmeen haweenku. taas ayaa ka dhigtay lagama maarmaan in la helo xarun joogto ah oo lagula tacaalo tacadiyada ka dhanka ah haweenka. Xaruntu waxay u soo guurtay dhismo casri oo cusub oo laga dhex dhisay xarunta dalada guud ee haweenka ee Nagaad. Maaris 5 ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland uu xariga ka jaray xaruntan. Xaruntu waxa ay wada shaqayn la leedahay dhammaan xarumaha kale ee adeegyada u fidiya dadka dhibanayaasha ah oo ugu horeysa wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska, xarunta xuquuqul insaanka qaranka, xafiiska sharciga ee jaamacadda Hargeysa, booliiska iyo dhammaan ururada kale ee adeegyada u fidiya dadka dhibanayaasha ah. Waxay qaabishay dhibanayaal kala duwan oo ay ku soo dhaceen tacadiyada kala duwan waxaana u badan tacadiyada ka dhaca guryaha kuwaas oo ay soo gaaraan dhaawac jireed, mid maskaxeed iyo mid dhaqaalaba. adeega la talinta cilmi nafsiyeed waa adeeg uu bixiyo la taliye xirfad u leh cilmi nafsiga oo uu siiyo qofkii dhibana ahaa qoyskiisa iyo cidii kale ee u baahanba. ujeedaduna waxay tahay yareynta ciriiriga iyo culeyska ku imanaya qofkii dhibku soo gaaray. waxay ka caawinaysaa inaad si wanaagsan oo taban u soo bandhigto dhibkaaga, ku iftiimiso inay jiraan fursado kale, inuu kordho wacigaaga iyo xal loo helo mushkiladaada ama dhibka. hagaajinta fayo-qabka maskaxeed iyo horumarinta xirfadaha la qabsiga. guud ahaan tayada noloshaada, gaar ahaan hadaad tahay qof dhibana oo la soo kulmay tacadi.